nimankan marka waxaa haadaantaa ka riday sidaad og tahay diintu waa naqliyo mashaayikh baa loo samaystaayo kitaabkan iyo fannigan oo waa la akhristaayo sanad bay leedahay oo wakaas waxaa inta la bowsado oo risaalaad yaryar oo lasoo daalacdo baa la rabaa inta ayada in carriga lagu xukumo oo la yidhaahdo diintu saasay qabtaa bas diintii kale iyo kutubtii midna lagama warqabo mashaayikh looma le lama akhrisan sanad nooma le saasaa la rabaa marka in lagu socdo waxaan rabaa marka boosiga wax ku saabsan oo khaladaad dhacay inaan mithaalo usoo qaato nin baa dadka daweyn jiray oo dibi buu samayn jiray oo kutubta dibigu inta daalacdo geede iyo hadba wixii uu maartay kitaabku ka daalacdo buu ku daweyn jiray maalinta kitaabu daalacanaya wuxuu ku arkay xadiidka garanaysaanoo alxabatu sawdaau dawaaun likulli daa ila saam xabatu sawdaa soo maha xabatu sawdada bahasha la yidhaahdo cudur kastaa daaway u tahay waxaan geeri ka ahayn baa li xadiidku saasuu ahaa waana macluuma waa la yaqaana xadiidka marka wuxuu u kiciyey marka alxayatu sawdaa abeesada madow dawaaun likulli daa'in buu u kiciyey marka xadiidka waa nin marka dadka daweeyo loo yimaado wax ku qaatee ma og tahay baadigoob buu u galay marka abeese madow abeese madow buu soo helay baashii buu dadkii u jarjaray dadkuu daweynahay intuu u maraqeeyey buu waraabiyey marka baashi qofkii uu siiyaba kow baashada waa moogtahay waa sun weeyaan dadkii markii intaasoo qof dhinteen baa weerar lagu soo qaaday maxaa dadka ku samaysa dadka waa daaweeyey maxaa ku daweysa hadda xadiidkii waana cuskaday oo wuxuu yidhi nabigaa yidhi buu yidhi alxayatu sawdaahu dawaahun likulli daa nabiga sooma dhihin buu yidhi abeese madow qofkii cunaa bas markaasaa bal xageed ku arag soo bixi war meeshaan alxabatu sawdaa waa ku tahay xadiidkuna siduu ahaaye markaa dadkii magteedii waa lagu leeyay soo maaha marka ninkaas xabatu sawda iyadoo laga hadlahayo muxuu ku qalab qaaday xayo madow abeese madow buu ku qalab qaaday soo maaha qoladan weer dawac iyadoo weer calaan laga hadlahayo dhurwaa u qalab qaadeen bawsiga dhibkiisa wey way bawsadeen mooyaane mayna akhrisan waxbana taa waa halkaas mid kale wuxuu yidhi nimankan culammada ahoo culammadu moogtahay asalaf waalkhalaf labadaa qaybood waa kuwa wuxuu yidhi khalaf dadka la yidhaahdo waa diinta cadowgeeda buu yidhi hadba midka usii cilmi badan baana diinta ugu sii cadowsan oo maxaa dhacay nabigu wuxuu yidhi buu yidhi yaxmilu haada diina min kulli khalafin caduwun lahu buu yidhi hadda xadiidku saa u galay adu waa garan kartaa marka meesha u wado xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaxmilu haada diina min kulli khalafin cuduuluhu buu ahaa diinkan waxaa xambaari doona dadka khalafka ah kuwooda caadiliinta ah waa culammada marka khalafka ah nabigaa taskiyeeyey way fiican yihiin soo ma marka cuduuluhubu wuxuu u kiciyey caduwun lahu markaasaa waxaa usoo baxday qof kastoo khalaf oo cilmi le inuu diinka cadow ku yahay baa usoo baxday bal wixii laga hadlayay ninkaa meeshu ka dhacay fiiri bawsiga dhibkuu leeyahay bay ka mid tahay mid kale wuxuu arkay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warramahayey oo nabigu nadara ila almir'aati mir'aat markuu muraayad nabigu isku fiiriyo dee wejigiisa quruxda badnaa u arkaya ilaa muraayad isku fiirisa mooye wejigaada kama warqabtid markuu nabigu wejigiisa muraayad ka arko muxuu odhan jiray allaahuma axsin khuluqii kama axsanta khalqii ilaahayow sida abuuriddeeda adu qurxisay ee wejigiisa quruxda loo dhameeyey buu arkahayaa ilaahu sidaasoo kale dabeecaddeydana u wanaaji buu nabigu ku ducaysan jiray wuxuu u kiciyey marka nabigu wuxuu ahaa idaa kaana ila almar'ati idaa nadara ila almar'ati hadduu nabigu naag arko fiiriyo buu markaasaan ku ducaysan jiray ninkii marka sunnadii baan dabaqahayaa buu leeyay suuquu soo aadahayaa hadba gabar qurxoon buu fiirinaya markaas wuxuu leeyay allaahuma axsin khuluqii hadda sunnuu dabaqayaa ninkaa sunnuu noolaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii nabigu noolaynayaa marka ninkaas marka waa nooc kaloo ayadana bawsiga dhibaatadiisa ka mid a haddaba marka waxaan leenahay nimankaas wixii ay bowsadeen waxay noqotay xabatu sawda iyo xayatu sawday noqotee diinta akhrisa loogu noqdo beentana dadka laga daayo